السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي دمان بعد جعل خبرشة جارهان أرض الصومالية تميل بيجوجان. ما أنتوا حكوا حجرنا 10 كيلوات مادة بيولوجيا أنا بوجان مقررة منهج في عصب الدولة صارتي إن كستو أنا هيسن هذا سوفتي بوجا عن سمينين قرال يرانا عن سميني عن شورت كجام سميني إن شاء الله lesson kan wuxuu noqon doonaa lessonkii labaad ee maadada biology-ga kalaaska form 4ka inkastoo ay arday fara badan ay nagu soo codsadeen ay dhaheen set kalaaska form 4ka noo soo goosiyey insha Allah waa sii wada doonaa dhammaan waa isku sii wada doonaa form 4ka form 1ka form 2 form 3 form 4 dhammaan waa isku durwaday doonaa insha Allah aad la socono 1.1 waa cashirkii koowaad iyo chapterkii koowaad iyo lessonkiisii koowaad hore waxaan soo qaadanay waxa la yiraahdo introduction kaas waxaan kasoo baranay sida loo qeexayo nervous system waxyaabaha uu ka kooban yahay nervous system shaqada uu qabanayo central nervous system BNS maxaa loo soo gaabiyey xageena wayna loo soo gaabiyey CNS maxaa loo soo gaabiyey sababta loo soo gaabiyey maxay tahay intuu baa soo wada sheegnay maanta waxaan qaadanaa markaas the nervous tissue 1.1 aan leeyahay markaas chapterkii koowaad cashirkiisii koowaad the nervous system nerve tissue is composed wuxuu ka kooban yahay the neurons ayuu ka kooban yahay and neuroglia waxaa lagu dhigi karaa markaas what is the nervous tissue is composed nervous tissue wuxuu ka kooban yahay nervous tissue is composed wuxuu ka kooban yahay neurons iyo neuroglia uu ka kooban yahay neuroglia uu sharxi doonaa ifir neurons maxaan dheynaa magac kale loo yaqaan waxaan dheynaa nerve cell what is the other name of neurons waxaa loo yaqaanaa nerve cell ay maxaa leedahay the working unit waa aaska ugu yar ama midka u shaqeeya ugu yar of the nervous system and that generate kaasoo dhalinaya markaas and transmit una gudbinayo nerve impulse hore aan soo qaadanay waxa soo qaadanay saddex ereyaan soo qaadanay intaan cashir ku bilaawno waxay ahaayeen neurons aan ku soo sheegay muxuu ahaa sidoo kale waxaan ku soo sheegay nerve aan ku soo sheegay wuxuu yahay sidoo kale nerve impulse aan ku soo sheegay neurons while neuroglia fiir markaas neuroglia waxaan leeyahay do not conduct misku xiro markaas nerve impulse dareen wadka isku xiro instead marka loo fiirina markaas and they support waxayna taageeraan protect ayna difaacaan the nerve cells yada ay difaacaan structure of the neurons qaab dhismeedka neuronada uu leeyahay structure of neurons qaab dhismeedka neuronada ay leeyihiin neurons are diva way kala duwan yihiin waxay kala duwan markaas size cabirkooda kala duwan yihiin length dhererkooda kala duwan yihiin and shape iyo sidoo qaab dhismeedkooda as they may rank neurons consist of wuxuuna kusii koobiyaa markaas neuronada 3 main regions saddex region ay kooban yahay saddexdaas maxaa ka leeyahay dendrites waa qayb faro leh cell body sida qaybta oogada jiro iyo axon oo qaybta oo markaas madaxooda dendrites maxaa dheynaa oo sharxa fiir dendrites receives wuxuu helaa signals called impulse signals ayuu helaa signaladaas markaas lagu magacaabo impulse lagu magacaabo from the other neurons iyo neuronada kale uu soo helaa markaas conduct wuxuu soo helaa markaas the impulse to the cell body oogada cell body uu soo helaa fiiri markii meesha aan soo sharxin waxaan dhahnay neurons wuxuu kooban yahay saddex qaybood uu kooban yahay waa different and way kala duwan yihiin maxay kala duwan yihiin size cabirkooda way kala duwan yihiin length dhererku way kala duwan yihiin shape qaab dhismeed way kala duwan yihiin dendrites kan iyo cell body aan had isku wada mid maan way kala duwan yihiin axon kan sidoo kale saddexdooda waxay ku kala duwan yihiin hadda bir waxa lagu dhigi karaa maxay ku kala duwan yihiin neurons waxay ku kala duwan yihiin farqooda waxay muxuu tahay saddex neurons cell axon cell body waxay kala duwan markaas size ka way kala duwan yihiin length way kala duwan yihiin and shape way kala duwan yihiin okay markaas dendrites waxaan leenahay receive signals uu helaa called kuwa signalka lagu magacaabo markaas impulse ayna from wuxuu soo qaadaa markaas other neurons neuronada kale and conduct wuxuu isku xiraa markaas the impulse uu isku xiraa to the cell body uu leeyahay markaas cell body-ga lesson-kii xigay markaas continue wuu socdaa the nucleus bu'da
the nucleus bu'da of the neuron ee neuronada and many of the cells iyo cellsyo fara badan organelles are found waxaa lagu helaa markaas in the cell body lagu helaa nucleus waa u naqaanay waxaan dhahnay waa sheeg bu'dii dhexda ku dhex jirta cell body waa sawirka markuu samaysan yahay asna wuxuu ugu dhex jiraa waa qaybta dhexda ugu dhex jira dhexda ku samaysan yahay dendrites giisu maraa sidoo kale nucleus wuxuu noqon karaa dhulka inuu ku dhigo dhexda centralka inuu galo sidoo kale waxaan qaadanaynaa markaas last midka kale u dambeeyo oo ah axon muxuu yahay carries wuxuu xambaaraa the nerve impulse uu qaadaa from the cells kusoo qaadaa to the other neurons and muscle wuxuu geeyaa markaas neuronada kale iyo maskalada kale uu geersiyaa in the human body jirka bani aadamka there waxaa jira myelin myelin sheet jira oo loo yaqaan markaas myelinated sheet which are taasoo tahay markaas which is fatty materials taasoo ku sameysa markaas waxyaabo oo fats that wabs fatskaasoo markaas duuba around the nerve cells projection nervesiyada meesha ku dhow inay duubaan aynu u sameeyaan markaas projection nervesiyada inay u sameeyaan projection aynu duubaan and do not have malahan markaas myelin malahan neuronada with myelin carrier kuwaasoo leh markaas myelin carrierka impulse that are associated waxay la xiriiraan with a sharp pain ay la xiriiraan xanuuno oo dheeriya neurons that have lack myelin neuronada oo aan lahayn myelinka carries impulse kuwaasoo xambaar markaas impulseyada associated with a dull waxay la xiriiraan markaas with a dull and thrombin ay la xiriiraan okay waa computerka dibka iga dhici rabo waa sii boobsiinaynaa types of neurons noocyada loo kala qaybiyo neuronada waxaa loo qaybiyaa waa la kala qaybiyaa waxaa ayagoo lagu sifeynaya markaas nambarada ay leeyihiin sidoo kale waa lasii qaybiyaa waxaa loo sii qaybiyaa markaas beeska ay ku salaysan yihiin ama shaqada ay qabanayaan markaan ku dhaho types of neurons inta loo qaybiyo waa laba process ay marayaan mar waxaan u fiirinaynaa neurons are classified waxaa loo qaybiyaa according to anagoo u fiirinayna markaas the number of dendrites nambarada ay leeyihiin analyze from the cell body kuwaasoo lasoo markaas cell body into maxay noqonaa markaas 4 types 4 qaybood which are afartaas maxaan dhaynaa axonic unipolar bipolar and multipolar afartaas loo qaybiyaa number of dendrites marka u fiirin waa neurons waxaa loo qaybiyaa 4 qaybood waa la kala qaybiyaa waxaa lagu saleeyaa markaas marka anoo u fiirinayno number of dendrites muxuu noqonaa markaas axonic uu noqonaa unipolar uu noqonaa bipolar uu noqonaa multipolar uu noqonaa okay types of neurons noocyada uu leeyahay neuronska and their structure iyo qaab dhismeedkooda functionally shaqadooda marka loo fiiriyo there are 2 to 3 types saddex qaybood loo qaybiyaa of neuronada grouped kuwaasoo isugu xiray markaas according to anagoo u fiirinayno the direction of impulse conduction jihada uu ku jiro markaas impulsiga saddex qaybood oo qaybinayna tan marka function marka u fiirinayno waxay noqonaan sensory motor and relay neurons and okay and sensory neurons aan sharaxno sensory neurons waxaan dhaynaa markaas magac kale u naqaan waxaan dhaynaa afferent neurons afferent neurons kan waxyar aan ku afferent neurons kan waa asal laba qaybood loo qaybiyaa afferentigan laba qaybood loo qaybiyaa laakiin buugan oo qoraayo asalkooda ay inoo celi markaas lecture loo yaqaano lymphatic systemka waa la kala qaybiyaa wuxuu noqonaa ilaa iyo 4 qaybood lymph vessels lymph glands iyo lymph organs lymph wuxuu noqon waxaan leeyahay markaas clear water fluid aan leeyahay mise wuxuu ku kooban yahay dhana similar composition wuxuu isku dhis yar uu ku sameeysan yahay to the plasma isku dhiskaas oo markaas plasma uu leeyahay hadii laga reebo laakiin plasma proteinadu waxay ahaayeen ilaa iyo 4 qaybood noqonayeen
waxaan dhahayna markaas sheeg albumin, globulin, fibrinogen saddexdaas qayboodaan dhahaynaa. Composition of plasma wuxuu ku kooban yahay plasma composition ka daan sheegno wuxuu ahaa jiray water biyo, plasma proteins, albumin, globulin, fibrinogen, nutrients, water materials and hormones iyo dheecaano. Composition of lipid muxuu noqonaa markaas water uu noqonaa, nutrients uu noqonaa, waste materials uu noqonaa iyo gas hormone. waxaan rabaa inaan kusoo gaarsiiyo ereygan oo la yiraahdo afferentigan markaan u joogno markaas lymph vesselska waa la kala qaybiyaa lymph capillary, lymph nodes iyo thoracic duct iyo regions u qaybinaa. waxaa si imaata markaas lymph nodeska waa la sii qaybiyaa, waxaa loo qaybiyaa lymph nodes ama lymph glandska waa la sii qaybiyaa. muxuu noqonaa very small swallow structure of the lines in the groups waa group yar oo meel kusoo laalaada waay. structure qaab dhismoodkan wuxuu u samaysan yahay markaas outer capsule qolof yare oo kof saaran that deposit qolofkaasoo meel dhigaya markaas to the forms of heliumkaas wuxuu noqonaa markaas laba u qaybsama markaas wuxuu noqonaa afferent iyo efferent. labada qaybood waa ku imaanaa. hadda waxaa ku imaaday afferent neurons. afferent waxaan dhahaynaa markaas waa interest wax soo gala ya ka haleyn. afferent waxaan dhahaynaa markaas wax ka soo baxo waa extras waxa ku soo baxaya afferentiska. efferent maxaan dhahaynaa markaas waa waa wax soo galay, mid wuxuu ku soo baxaa midna wuxuu soo galaa. kan markaas afferent neurons kan waxaan dhahaynaa markaas neuronada markay wax ka soo baxayaan meeshay ka soo baxayaan. buug waa sawirku ku muujinaa, buug maqaar ka fiir insha Allah. anaga sawir had ma heysano, waa qoraal aadaan soo qaadanay. okay, these neurons get information. neuronada markaas sensory neurons kan get information akhbaar helaan from about waxay helaan markaas what is going on waxa socda inside or outside. gudaha waxa ku dhacayo iyo banaanka waxa ku dhacayo informations kaas ay helayaan. and bring the information into the brain. fariintiin markaas waxa u diraa markaas maskaxda loo diraa or spinal cord mise xanguushiya loo diraa. waan soo sheegnay brain and spinal cord waan soo sheegnay central nervous system iyo peripheral nervous system soo dhaanay. central nervous system intuu kooyay waan soo sheegnay, peripheral nervous system intuu kooyay waan soo sheegnay markaas. okay, in order markaas anoo u fiirinay markaas to be prosecuted marka inay sameeyaan markaas inay soo turjumaan brainkii markii loo gudbiyo spinal cordkii markii loo gudbiyo fariinta brainkii spinal cord maxay sameeyaan to prosecute inay soo turjumaan wixii meesha ku dhacay. in sense for haday sameeyaan if you pick up a hot cord haddii wax kulul aad taabato sense neurons dareen wadahaaga in your finger ee fartaada would cover information fariin akhbaar ay soo gudbi doontaa to your brain maskaxda u gudbinaya or spinal cord mise maskaxda loo gudbiyaa in order in si loo sameeyo markaas si u sameeyo markaas spinal cordkii for processing inay soo turjumaan markaas turjumada aan soo bixiyaan. intaan kusoo askumeynaa kulama uu computerku uu gudimaayo waa next lecture soo imaanayna insha Allah. labadan xabaan dhabeystira. sidoo kale waxaa kale loo qaybiyaa motor neurons. motor neurons waxaa leeyahay efferent neurons. haddaba ku soo sheegay efferent neurons waxaan ku dhahay meesh inay wax soo galaan. these neurons neuronadani get information akhbaar helaan from inta laga soo qaado akhbaartaas from the spinal cord brain and spinal cord maskaxdii iyo kiya laga soo qaadaa. tiadaan maxay ahayd fiir sensor neurons kan fiir ku celiyo maxay ahayd these neurons maxaan ku dhahay these neurons get information akhbaar helaan from what is going waxa ka socdo inside gudaha and outside of the body qaybta banaanka gudaha jirka iyo qaybta banaanka and brain and bring the to the body and that information to the brain. mas fariintas marka inta loo gudbiyaa maskaxda loo gudbiyaa iyo spinal cordkii. motorkin maxay ku leeyahay markaas get information akhbaar hele akhbaartan inta laga keenaa from the brain maskaxda laga keenaa. tiadaan maxay ahayd jirka qaybiisa gudaha iyo qaybta banaanka fariin soo qaadaysay maskaxda iyo spinal cordka loo gudbi jiray. tan waxay sameeyaan markaas maskaxda fariin lagu soo qaadaa get information from the brain maskaxda lagu soo qaadaa spinal cordkii. cover commands u sameeyaan markaas the olfactory organs inay sameeyaan markaas xubnaha such as waxa kamid ah markaas xubnahaas muscles or glands masa muruqyada iyo ama qanjirada.
relay neurons wax kale ma ahan kii koowaad sensory neurons waxaan kusoo qaadanay waa jirka qaybtiisa banaanka iyo qaybtiisa gudaha in fariin ay soo qaado maskaxda loo geeyo. motor neurons waxaan dhahnay waa jirka inay fariin maskaxda laga soo qaado. kan wuxuu noqonaa markaas wuxuu isugu xiraa motor neurons iyo relay neurons aan aragna markaasna waxaan leenahay conductor wuxuu isku xiraa intermediate dhexdhexaad which are found only kaasoo lagu helaa markaas in the brain maskaxda aan spinal cord-ki. connect wuxuu isku xiran one neuron to another hal neuron iyo kuwa kale isku xiran. they receive waxay helaan information akhbaar helaan from the neuronada kale helaan markaas either wuxuu noqon karaa markaas neuronadaasi sensory neurons uu noqonaa or inner neurons oo loo yaqaan sensory neurons and transmit kabaan wuxuu gudbiyaa markaas information akhbaarti to other neurons kale uu gudbiyaa. sidoo kale wuxuu ka noqon karaa motor neurons and motor neurons uu noqon karaa. kugu soo sheegay relay neurons waxaan ku dhahay wuxuu u dhaxeeyaa motor neurons-ka iyo relay neurons-ka u dhaxeeyaa. wuxuu ku dhahay receive information akhbaar uu soo qaadaa from the neuronada soo qaada. neuronada kuwee waa labada xab ay noqonayaan motor neuron sensory neurons iyo motor neurons. ida neurons wuxuu noqon karaa ugu dhahay sensory iyo motor ay noqon karaan. meeshaan kusoo askumeynaa waa computerka nagu dibla insha Allah next lecture waa soo gudbi doonaa. aad u mahadsantihiin waxaan idinka tagi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.